وشيكا آدي آدو حيسا بدن ويان قبيل كميدة قبيلة دقا يمن iyo dagaalyahanada xuutiyiinta ayaa dagaal culus dhex mari doona kadib markii gabadhu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein ay magangeliyo weydiistay qabiil kamid ah qabiilada daga Yemen kuna nooleed guriga suldaanka ciidamada xuutiyiinta ayaa gabadha guriga kala baxay oo meel gaar ah ku afduubtay odaygii baa u tagay kuuri soo daayay gabadha way soo deyn waayeen way diideen odaygii wuxuu reerkiisii inta ku soo noqday buu yiri sharafta imaamadayda iyo dhaqankeena difaaca xuutiyiintana waa in dagaal culus lagu qaadaa waxyaabo aad ka xiisaha badan leh 2500 oo tignikaabe reerkiis ka soo ururiyeen si loo weeraro ciidamada xuutiyiinta reerihii kale agaarka u dhawaa iyagoon qaylo dhawn dirsan bay reerihii kalena ku soo biireen oo yiraahdeen haddii reerka ciidamadoodii la taabtay reer walba ciidamadoodana waa la taabanayaa reer wali wax iska soo ururiyeen tignika gaadhaysa ama baabuur dagaal oo gaadhaysa 2500 gaadhi ciidamada xuutiyiinta ayaa gurmad culus u dirsaday dalka Ciraaq iyo dalka Qatar oo yidina dhexdhexaadiya wada hadallo noo furo dadka dagaalyahanada ee qabiilada aad iyo aad bay jiqigu tahay waayo baabuurta halkan ka muuqata ma aha baabuur aynu soo koobi karayno tiradooda iyo xadka ay leeyihiin